federaalka Soomaaliya wasiirada iyo xildhibaanada dowladda federaalka ee Soomaaliya wasiirada iyo xildhibaanada dowladda galmudug odayaasha dhaqanka uu hogaaminayo uraaska beeshiisade gudoomiyaha degmada Caabuda iyo shacabka dhammaan Caabuda ciidamada qalabka sida bahda warbaahinta dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu yacni kusoo dhawow degmada Caabuda waxaa ku nool dadkaagii waxaa ku nool bulshadaadii waa bulsho aad kuu tabaysa waa bulsho aad kuugu baahnayd runtii ilaa iyo muddo sugaysay intii aad deegaanada galmudug soo gaartay oo dhan iyo maalinkii lagu doortay intaasoo dhan doonaysana inaad halkaan ugu timaado runtii magaaladan waxaa la aasaasay 1950 ilaa iyo intaasna dadkeeda inay sii bataan moogi marna ma yaraan magaaladan waa magaalo aad u weyn waa degmada ugu bulshada iyo dadka badan deegaanada galmudug runtii waa degmo si aad u sarraysa wanaagga iyo jacaylka iyo siday dowladnimada Soomaaliyeed u qabaanna waxaa ka garanaysaa sida maanta halkan ay kugu soo dhaweeyeen oo u soo wada baxeen carruurtii hooyooyinkii dhallinyaradii iyo odayaashii dhammaantood oo si aad ay kuu soo dhaweeyeen ra-iisul wasaare waxaa aad kugu soo dhaweeynaa safarkaagan oo qayb ka ah soo dhaweynta iyo soo dhaweynta dadka ku nool deegaanada galmudug oo runtii aan arkarna inaad ku soo guulaysatay wixii hadda soo qabatay aanan rajaynayna inta badan inaad dhammaystiri doonto dadkan ku nool degmada Caabuda waa bulsho ka tirsan bulshada galmudug laakiin wax badan oo cabashaa ka qaba kollayba ayaga hadda kula wadaagi doono insha allah mudane ra-iisul wasaare ku soo dhawow waa ku soo dhaweynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم سيفي عن ما ليسو مغلا سوين ما ليسو مغلا عرفوك بان إذن كغني مذا عابد باقوي من نبض با مقالة دي إلهي لغو عابد آيه عابد باقوي من نبض با شعبكي dowladnimada ciseeyo oo caabud waaqay ma nabad ba marta culus baan silaaye caabud waaqay ma nabad ba dhulkii geela cascasaayo oo caabud waaqay ma nabad ba dhulkii gabdhaha cascasaayo oo caabud waaqay ma nabad ba caabud waaq maaniga ka dhigay cadanta loo dhoofo waxaan leeyahay geel soo darmaday caabud waaq weelka ii daradhe ayuu yidhi abwaanyayam marka hore waxaan u mahad celinayaa dhammaan shacabweynaha Soomaaliyeed ee reer caabud waaq sida sharaftooda noo soo dhaweyseen madax iyo shacabba waxaan leeyahay haddii qof Soomaaliyeed oo halkan jooga ama dalka dibaddiisa jooga oo halkan naga daawanayo uu shaki uga jiro in dowladnimada Soomaaliyeed ay hana qaaday tusaalihii maanta ayaa hortiina taagan yahay haddaad walwal ka qabteen inay Soomaaliya hore u dhaqaaqday kaalay caabud waaq soo daawada haddii aad rajaba xumo qabteen eega indhaha wiilasha iyo gabdhaha yaryar ee caabud waaq iyo jacaylka ay dowladnimada u qabaan waxaan rabaa inaan idiin mahad celiyo intaas ka sokow waxaan idinkugu imid inaan idinka codsado waxyaabaha soo socda waxaan idinkugu imid inaan idinka codsado inaad noo oggolaataan aniga iyo wafdigayga anigoo ku hadlaaya magacayga iyo magaca madaxweynaha iyo kan xukuumadda
inaan idinla dhisno galmudug nabad ah inaan idinla dhisno galmudug laga daaweeyey khilaafkii ragaadiyey inaan idinla dhisno galmudug wada jirta oo mid ah inaan idinla dhisno galmudug leh maamul loo dhan yahay oo aan sadbursi lahayn iyo inaan idinla dhisno galmudug xidhiir wanaagsan la leh dawladda federaalka reer caabudwaaq waxaa lagu yaqaannaa dawlad jacaylka waxaa lagu yaqaannaa dawladnimada waxaa lagu yaqaannaa dulqaadka waxaa lagu yaqaannaa inay tahay magaaladii alle caabudka intaasoo la isku daray waxaan rajaynayaa inaad maanta iga aqbalaysaan inaad hormuud ka noqotaan in galmudug aasaas fiican loo jeexo horena loo wado waxaan rabaa in tiirarka ay ku taagan tahay dawladnimada galmudug reer caabudwaaq ay hormuudka u noqoto diyaar mawtiin diyaar mawtiin in dulqaadka ugu weyn aad muujisaan diyaar ma u tihiin inaad dadka isu keentaan diyaar ma u tihiin inaad noqotaan dowrkii dawlad goboleedka galmudug hormuudka ka noqon lahaa waxaan rabaa in odayaasha gabdhaha reer caabudwaaq dhallinyarada siyaasiyiinta iyo cid walba oo ku abtirsata degmadan inaad ogaataan meel walba oo aan soo marnay waxay aqbaleen sida idinkuba aad cod dheer ugu aqbashaan in la dhammeeyo wax walba oo khilaaf ahaa oo ka dhex jiray reer galmudug in la qabto doorasho xor ah oo loo wada dhan yahay in dadka reer galmudug ay xor u noqdaan danahooda iyo mustaqbalkooda dawladda federaalkuna ay garab istaagto laakiin reer caabudwaaq waxaan ka rabnaa inay gacanta ugu weyn ku bixiyaan ee diyaar ma u tihiin waxaan rabaa inaan idiin sheego oo aan maanta hortiinna ka caddeeyo dawladda soomaaliyeed waxay ku tallaabsatay horumar waaweyn dawladdu waxay ka shaqaysaa in dhaqaalihii dibuhabeen ay ku samaysay oo dunidu aqbashay in amnigeeda ay dibuhabeen ku samaysay in siyaasadda ay dibuhabeen ku samaysay in danta soomaaliyeed hadda ay ka taliyaan madax soomaaliyeed oo aanay ajnabi ka talin si horumarkaas loo xoojiyo waxaa loo baahan yahay in gobollada dalka oo dhan ay shaqeeyaan dawlad goboleedyada la hirgeliyo waxaan soo maray dhul weyn inta aan ku dhex socday galmudug oo wada nabada oo kulligiis barwaaqo ah laakiin u baahan in la sii adkeeyo nabadda iyo xasiloonnida u baahan in maamul dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan galmudug loogu adeego laga dhiso waxaan rajaynayaa marka in kulligeen reer galmudug ama cadaada joog ama caabudwaaq joog ama dhuusamareeb joog ama gaalkacyo joog ama xamar joog haddii aad reer galmudug tahay inaan nidhaahdo waa dhammaaday wakhtigii khilaafka waxaa la soo gaaray wakhtigii gacmaha la isqabsan lahaa ugu dambayntii waxaan salaan diiran idinkaga sidaa madaxweynihiinni madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo farriintiisu ay tahay tan uu ii soo dhiibay oo ah dhisidda galmudug xor ah oo waarta waxaa laga rabaa xoogga ugu badan reer caabudwaaq inay geliyaan waxaan halkan rabaa inaan ugu yeedho xildhibaanadiinna xildhibaan faarax cabdi xasan xildhibaan nadiifo wasiir hilaal
iyo madaxweyne ku-xigeenkiinna waxaan rabaa inaan hortiinna uga mahad celiyo xildhibaannada idinku madela dawladda federaalka si wanaagsanna ula shaqeeya dawladda waxaan rabaa inaad gacmo furan ku soo dhowaysaan xildhibaan faarax xildhibaan nadiifo iyo wasiirkiinna wasiir hilaal iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka oo ah nin wakhti dheer geliyey sidii loo taabagelin lahaa galmudug waxaan leeyahay reer caabud waaqow allaha idin xifdiyo soomaaliya allaha xifdiyo khilaafka galmudug allaha dhammeeyo soomaaliya ha ka dhigo dalka ugu khayr badan afrika iyo dunida waxaana rajaynayaa in safarkan halkan aan ku imid uu noqon doono qayb ka mida taariikhda ummadda soomaaliyeed oo horumar u horseedi doono reer galmudug iyo dhammaan soomaaliya soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato soomaaliya ha noolaato reer caabud waaq ha noolaadeena waa mahadsantihiin